soo dhawaada asxaabay. Beri baa waxaa jiray tuulo lagu magacaabi jiray Sanabuur. Tuulada waxaa ku noolaa lamaane aad isugu faraxsan, Rajesh iyo xaaskiisa Anjali. Waxa ay ahaayeen dad faqiiro ah, haddana isku faraxsan. Habeen habeenada ka mid ah, Rajesh waxa uu maqlay in guddoomiyaha magaalada uu doonayo shaqaale. Rajesh waa uu soo baxay oo waxa uu doonayay inuu shaqaysto. Waxa uu guddoomiyaha ka codsaday inuu u shaqeeyo. Guddoomiyuhu waxa uu dalbaday in guriga loo rinjiyeeyo. Rajesh waxa uu bilaabay shaqadiisii. In badan oo uu shaqaynayay, waxa uu si khalad ah u rinjiyeeyay qol khaldan. Guddoomiyaha xaaskiisu waa ay xanaaqday oo waxa ay doonaysay inay ceeriso, balse Rajesh waa uu barbariyay. Laakiin guddoomiyaha xaaskiisu waa ay xanaaqday oo waxa ay ku tuurtay miis meesha yaalay. Rajesh waxaa ka baxay dhiig aad u fara badan oo waa uu dhintay. Guddoomiyihii dadka waxa uu u sheegay in Rajesh uu ku dhintay si khalad ah, weliba shil ah. Rajesh xaaskiisu waa ay murugootay, waayo waxa ay lahayd uur. Waqtigu waa uu soconayaa oo maalmuhu waa ay dhammaanayaan. Rajesh xaaskiisu dadka may caawin jirin oo waa ay dulaysan jireen. Iyadu waxba may qabsan karin oo waa ay dhimatay. Kadib markii ay dhimatay, waxaa bilaabmay ciqaab oo cabsidu waa ay siyaaday. Qof waliba gurigiisa waxaa lagu arkayay dhiig aad u fara badan, weliba lagu rinjiyeeyay. Cabsidu waa ay ka daran tahay tii hore. Dadku waa ay la yaabeen oo waa ay baqanayeen. Balse maxaa dhici doona? Fadlan intan haddaad nala soo gaadhay, nagu soo biir oo subscribe noo saar channelkeena, lana soco qeybaha dambe ee muuqaalka. Mahadsanid.